waxa uu xifdiyey ama qaybay qur-aanka kariimka, waxa uu bartay xadiiska, fiqiga, xisaabta, cilmiga xidigiska iyo arrimaha dagaalka. dhanka kale waxa uu bartay luqadaha carabiga, farisiga, laatiinka iyo giriigga. قال رسولنا الكريم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. سلطان محمد بن مراد الثاني بن محمد الأول بن بايزيد الأول بن مراد الأول بن أورحان بن عثمان بن أردغرل وسلطان كقبسة مقالة حتى نقانو إسطنبول. waxa uu dhashay 27kii Rajab 835 Hijriyada kuna beegan 30kii Maarji 1432 milaadiga. waxa uu ku soo barbaaray daryeelkii iyo gacantii aabihii Sultaan Muraad oo ahaa sultaankii lixaad ee boqortooyadii Cusmaaniyada. sidaan soo xusnay wuxuu yaqaanay luqadaha ay kamid ka yihiin Carabiga, Farisiga, Laatiinka iyo Giriigga. wuxuuna xifdiyey qowlka Eebbe, Quraanka Kariimka. wuxuu bartay xadiiska, fiqiga, xisaabta iyo xidigiska. waxa uu aabihii kala qayb galay dagaaladii iyo duulaanadii uu gali jiray, isagoo ay da'diisu yar tahay iyo loo magacaabay ama loo wakiishay xil si uu ugu tababarto cilmiga maamulka iyo maareynta, iyadoo ay dusha ka ilaalinayaan koox culimo ah waqtigiisii sida Sheekh Aaq Shamsudiin, taasi oo ay saamaysay shakhsiyadda amiirkan da'da yar iyo dhisidda maskaxdiisa iyo dhaqankiisa qaab dhismeed sax ah oo islaami ah. haddaba Sheekh Aaq Shamsudiin waxa uu ku guuleystay inuu amiirka nafsadiisa ku beero jacaylka jihaadka jidka Eebbe iyo hamiga arrimaha sare. sidoo kale wuxuu u sheegay bishaaradii xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam. Maxamed al-Faatix waxa uu hoggaanka la wareegay 2 jeer, wuxuuna si rasmi ah xilliga u qabtay kadib geeridii aabihii 5tii Muharram 855 Hijriyada kuna beegan 7 February 1451. wuxuu gudagalay qabsashada magaalada Qusطنطينية oo ahayd magaalo istiraatiiji ah. dhanka kale muslimiintu ay isku dayeen qabsashadeeda intaasoo jeer balse ay u soo roobi weyday. waxa uu samaystay hub casri ah iyo ciidamo aad u tababaran si uu u guuleysto qabsashadeeda. waxyaabihii ugu caansanaa uu u diyaariyey furashadan barakaysan waxa kamid ahaa inuu u diyaariyey madaafiic aad u waaweyn oo ayna Yurub hore u arag. wuxuu badda marmara ka dhisay maraakiib cusub si ay u xidhaan wadada Dardanelles. wuxuuna ka dhisay jidka dhinaca Yurub ee Bosphorus, qalcadii weyneed oo loo yaqaanay Rumli Xisaar. markii sultaanku dhameeyay wax kasta oo ka caawin kara inuu guul ka gaaro, waxa uu la baxay ciidankiisii oo ka koobnaa 265,000 oo ciidan lug iyo fardoole ah oo ay wateen madfac aad u weyn, waxaana uu u jihaystay dhanka iyo Qusطنطينية. haddaba markii uu ku guuleystay qabsashadeeda waxa uu qaatay magacan uu caanka ku yahay ee ah Maxamed al-Faatix. markii magaalada soo galay ayuu ka degay faraskiisii kadibna uu sujuuday. wuxuu tagay kaniisadii Hagia Sophia. waxa uu amray in laga dhigo masjid. waxa kale oo amray in masjid laga dhiso halka uu ku yaalo qabriga saxaabiga weyn ee Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu oo kamid ahaa duulaankii iyo isku daygii ugu horeeyay ee lagu doonayo in lagu qabto magaaladani. intaas kadib waxa magacii magaalada Qusطنطينية loo bedelay Istanbul oo ah magaalada Islaamka, waxaana noqotay caasimadii boqortooyadii muslimka ahayd ee Cusmaaniyada. wuxuu sii waday duulaanadii ay soo bilaabeen salaadiintii isaga ka horeysay. waxa uu sii ballaadhiyay taliskii Cusmaaniyiinta intii uu xukunka hayay. ugu dambeyntiina wuxuu geeriyooday 4tii Rabiicul Awwal 886 Hijriyada oo ku beegan 3 May 1481 miilaadi. mid kamid ah dhakhaatiirtiisii ayaa lagu eedeeyay inuu ku sumeeyay cunto. markan wuxuu ku wajahnaa magaalada Roma. haddaba dhimashadiisa awgeed waxaa Yurub ka dhacay arrin cajiib ah. markay maqleen dhimashada sultaanka, boobka ayaa amray in 3 cisho la duceysto mahadnaq awgeed, iyadoo ay ku faraxsan yihiin warkan. waxa uu leeyahay sultaanka qisooyin aad u badan oo aan ka go'ayn maanka iyo qulubta muslimiinta, dhinaca kalena aynan ku koobi karin muuqaal yar. waxa uu rucbi iyo argagax ku riday kuwii amarka Eebbe diiday. wuxuu ahaa shakhsi aad u jecel cilmiga noocyadiisa kala duwan. wuxuu ahaa gabayaa. waxa uu ahaa muslim ku dhaqma awaamirta islaamka. waxa uu dhisay masaajidyo, dugsiyo wax lagu barto. Eebbe ayaan ka baryaynaa inuu naxariista janno geeyo.